waxaan maraya waa M3 weeyaan baalkii magaalada lagu duqeyn jiray waa baalkii jaamacka kadiya lagu dilay oo nu ka haynaa صلي على محمد halkaan ku sugannahay waa Maraaga waa mid ka mid ah talisada ugu muhiimsanaa Soomaaliland saaka ayaa ciidamada SSC Khaatumo dagaal kula wareegeen waxaana warbixin naga siin doona taliye Cabdiqani Taandhale bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye Cabdikhayr Faarax Maxamuud Taandhale kaashaan la dhexe waxaan ahayn gootada 17aad oo isku jirta taangiyada iyo infantry goobtaan joogno waxa weeye dushii ugu weynayd oo ahayd Maraaga oo saldhigga ugu weyn ahaa nimanka la oran jiray SLM waaga hore hadda laakiin la baxday Somaliland oo muddada badan ku haystay dhibka aad u adag gobolka Laascaano dhamaantiis waaye saaka halkan maxaa ka dhacay saaka waxa ka dhacay dagaalku ugu adkaayo wax ka bilowday 10 saac oo hameynimo 2 saac iyo 25 daqiiqo waa laga jafay hubkaan u jeedaan ayaga watay taangiyada tan suuyada tan kuwa xagga jira beebayaal 3 taangi baawarta loo yaqaan shaqaaqada beemku saaran yahay 6 beebe suuyo tira badan wali tiro ka aan lahayn baawarta xogtada hadda intaan hayno 37 baa urweeyay way ciidamada SSC xagee ku sugan yihiin marka waxay ku sameeyeen yihiin meel u jirta magaalada la yiraaho Ari Cadeeye 2 kilomitir ka shaysa bidfaac kaga jiraan taangaan ini muuqda waxa la yiraahdaa T55 1940 ugu sii wadanka Ruushka baabuurta hadda ay wataan weeye oo dadka shacabka ku leeynayeen saaka 2 saac iyo waxa laga qabtay 10 daqiiqo waa baabuurtii ugu dhibaato badnaa ay ku hayeen dagaalka sool haddana gacanteenu ku jira waa laga qabtay ilaa 3 kalena wax ku jiraan gacanteena oo xagga yaaliin Imraan Cajab Golo TV Maraaga gaariga aad jeedo waxa weey waa 105 magaalada duqeyn jiray garaaci jiray waad aragtaan waa baabuurtii ay bixisay Djibouti ma sha Allah waa guuleysanay ciyaal TikTok weey ciyaal TikTok حاله عدله عيال تيك توك عيال تيك توك إلهي بان كو داري بالواحد إلهي بان كو داري بالواحد عيال تيك توك واقوا يا موبلدودي قريبه وتعا سديتن بايا صدم بايا لميدك وصدم ميل والبا waxaan waa inta TikTok taan soo ursanay macnaha gabdhaha ay caayay jirtay bismillaahir rahmaanir rahiim shantaan askari waxay ka mid yihiin maxaabiis dagaal oo saaka lagu qabtay sarkaal ma ku jiraan gacanta taag waa la bixiyay Abdul Maxamed Ibrahim watarka guutada tomnaad ee taliska guud taliska guud guutada tomnaad ee taliska guud ciidamada Soomaaliland waxaan la magacayga Maxamed Jaamac Warfaa ilka casana ku magac dheer guutada labaad qaybta 17aad ka tirsan
waxaan gooja cadde ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Axmed Cabdi oo ka mid ah ciidamada qaranka Axmed Cabdi Maxamed oo ka mid ah ciidanka Soomaaliland oo ka tirsan guutada tobnaad ee taliska guud. magacaygu waa Cabdisalaam Ismail oo ka tirsan guutada tobnaad taliska guud oo haata dable. magacaygu waa Sultaan Cabdiraxmaan oo ka tirsan guutada taliska guud ee ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland. naanaysteedu waxa loo yaqaanaa miim. magacaygu waa Sultaan Cabdiraxmaan oo ka tirsan guutada taliska guud ee ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland. naanaysteedu waxa loo yaqaanaa miim. labadaas sarkaal iyo saddexdan askari waxay ka mid ahaayeen maxaabiist fara badan oo saaka lagu qabtay dagaalkii ka dhacay maraaga iyo goosha cadde inta u dhaxaysa oo ay iskaga hor yimaadeen ciidamada Somaliland oo aagga deganaa iyo ciidamada SSC. maxaabiistaas bara kala duwan baa la geeyey. hadda nimankan horteeda taagan waa 5 ka mid ah xidigle iyo 2 xidigle iyo 3 askari oo ka mid ah ciidankii Soomaaliland oo saaka halkaa laga guuleystay oo laga kiciyey. waxay galeen gacanta unidka iyaga guutada 15aad ee duufaan gacanteeday galeen iyaga iyo 3 dhaawac oo aanu geynay cusbitaalada Laascaanood. waxaan u dhaqmaynaa si bini'aadanimada iyo xuquuqda sharciga iyo nidaamka iyo qawaaniinta caalamiga ah oo goshahay. waxaanu geynaynaa jeel. waxaa la marinayaa dembiga ay dalka iyo dadka ka galeen waa loo ciqaabaya, laakiin wax kale oo tacaddi iyo jirdil iyo dhibaato iyo bini'aadan xumaa lagu samayn maayo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الكي تليها قوطة شنية تمناد الدوفان أحمد عبد علي بدميي نمن كانوا ضياشة ومحابيس إذا مد السومال لنا ونمن دلكودي بالتشوغان دلكودي بالتشوغان سيدا طليو شيغي wixii ay qabto qawaaniinta dagaaladu ma ay wax kale oo lagu la dhaqmayaan ma jiraan. haddana waanu ka haynaynaa, waxaanu geynaynaa barihii loogu talagalay. maalinba guushu meel bay joogtaa. maanta gobolka Sool qaybihiisii badnaa waa gacanta SSC bay ku jiraan. alxamdulillaah rabbil caalamiin. waxa meesha isugu yimid Soomaali bay ahaayeen, waa isluuqad garanaynaayo dee af Soomaali ma isku garanaynaa, waa isgaranaynaa saraakiisha iyo dableydaba. alxamdulillaah rabbil caalamiin. ciidamadina waxay joogaan fadhiyo hore ay u guureen. haatanna waxaan u ambabaxaynaa meeshii loo qaadi lahaa maxaabiistatan. waxaa qaadaya saraakiisha Abshir Dheer oo ka mid yahay Faysal. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. ilaahay baa guushaan iska leh. waxa weeye sida taliyuhu sheegay maxaabiistaasi waxay ka mid yihiin ciidamada Somaliland oo saaka aanu ka guulaysanay. taliyuhu amarka uu nafaro ayaanu qaadanaynaa. guusha iyo mahaddana rabbi baa iska leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. marka ugu horraysa si inta taliyuhu sheegay nimankan waa maxaabiis. waa niman saraakiil iyo isugu jira askar. waa dad Soomaaliyeed. dadku waa diraa, dagaalku waa dhacaa. horey waa loo qaban jiray maxaabiista, waa lagu kala qaban jiray. waxaa lagula dhaqmi jiray sida sharciga ah xuquuqda maxaabiista iyadaa la marin doonaa. wax ka baxsan cidina ku samayn mayso. waxaan ballan qaadaynaa inaan cidina dhibaato u geysan. insha allah sidii hore looga wada xaali jiray baa looga wada xaali doonaa. wadadii maxaabiista iyo xuquuqdii ay lahaayeen oo miisaannimo bay heli doonaan. sidaa uu taliyahu sheegay waxaanu geyn doonaa meelihii loogu talagalay maxaabiista in la geeyo baanu geyn doonaa. waxaanu cid kasta oo ehelkooda u sheegaynaa inay nimankaasu nabad qabaan, inaan cidi waxyeelayn, inayan dhiman, inayan dhaawac ahayn, haddeer ayan waxba qabin, waxna aanan u geysan doonin. intaasaanu u sheegaynaa dadka wejiyadooda garanaya oo ay ka dhasheen. insha allahu waxayna mari doonaan maxaabiista la kala haysto waddada ay mareen haddii ilaahay. tanna waa jaqaa hadda la qabanaya.
هيا كورن maxaa عندنا صادق لما الاساسي وبحسن يسوون نادي استرن صديقته اللي بعد يقف ساحه كان واي جوج عند افكيسه halka laga qabsay أقوى تلسوي أقوى أولاد واكا هيا 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 سلام عليكم كل سنة شجرة كمان محابس واهينا ميت بدن واهينا أول بدن واهينا قول يا قبل الله أكبر الله أكبر waa gooja cad ay ku socdaan rag waa markii madaaya laga soo kacay halka sameeyna dadkan waxay ka soo yaaceen qeybta maraaga waa ciidamada iska xasaas ku kulmanaya haye waa soo dhawaay anay sanad aan ku soo guuranay dalsada waa u daadanay lixdan soo maraaga waa keenay hadda gooja cad ka waa dhaafay xagga magaalada waa ku halkaan sideed gaar waa laga hayaa xabiis waa laga hayaa laga soo duliya galnilo waxaa soo baabuur ordaysa waa ciidamada SSC waxay baxsanayaan uunada Soomaaliland waa arkaan gooja cad ay siigayaan baa kuwa rag maraaga kala soo kacay dhanka badiga wax badan bay baratay maraaga maxaa loo qaban waayay gooja cad maxaa loo qaban waayay hartigi meey waxaa soo gurmanaya waa ciidamada SSC ee dhanka maraaga ka soo gurmanaya xabadu hadda dhinacaas ay ka soo dhacaysa oo gooja cad naga xigo waa lagu socdaa waxaas ku dareeraya soo yaac war hore u soo socda hey halkaas iga soo xigta gaadiga soo xigta gooja cadana waa ka cadan taangiga waa ka ina taangiga aragtaan baa filayaa ina taangiga aragtaan baa filaya taangiga waa kaas aynoo ku deganaayeen sidoo saaka laga kiciyay magaalada la saar halkaas naga soo xigta waa kaas taangiga halkaas naga xiga waa ka kuwa meesha ka guureen saaka ha waa laga qabsaday miyaa واكا هيا سو دوال وكيل تقاقضه شوف على بحصله يا معرفة واكا تنوع دقائق حتى على القوارع اوه السلام عليكم بقى الكاسة شيك ما هبتك الرجال حق الرجال وانت الشاخ رجيتك ورشيك شيك هذا كده هو السوق كده السلام عليكم ها انت هذيركي وكو عرنا العاشق وانا كوالي دولنا سيدا سانا ينو بلنا هرقيسي برعينو نسوكي مان دولنا ولا واحد يستوي
badan duqeeyo laakiin ilaahay maanta ciidamada SSC gacanta ku haya waa geeraha waa ka waxaan leenahay hambaliyo hartiyo fiima Yusuf Kuchana halkan waxa kale fiimay shay wada hoys maantana kaalay inaad eray maxay laascaanood imo basiyo waxa joogta timaada gooja cadaymo dibta mooy mays walaal noo inaad eray kana naasra iyo musabbix wallahi tan inaad eray askar wallahi anaga u harayna anaga anigu ilmaha maanta gooja cadaymo walma baaqo baarasha Hargeysa kuugu imaanay Hargeysa saaka nolol geerina ku saaka nolol geeri magaca هاي ما تكور حالته هاي قصص ما قصنت هذا ريكتا 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 ورهاس العمل ريكتا ها ايوب كل ماليشيات كسر حد قطبي اي كسر فيان انت سويت كذا ديالك ما توها ilaahay fadligiisa ujeedooyinkii loo asteeyay dagaalka saaka aanu ku qaadnay muuse iyo maleeshiyaadkiisa waa laga wada gaaray ujeedooyinkii oo dhan maasha allah midnimadii soomaaliya maanta waa soo noqotay wadajirkii ummadda soomaaliyeed maanta waa soo noqday reer SSC dagaalkoodii waa ka sifeeyeen xadgudubkii lagu waday reer SSC maleeshiyaadkii ku soo xadgudbay waa ka sifeeyeen geygooda ilaah baa mahaddaa iskale ilaahay ka sakowna xoogagga xaqudirirka ah ee wiilal iyo gabdhaba leh ee reer SSC iyo hir harti baa iskale mahaddaa dagaalkaasi wuxuu bilaabmay saaka aroortii 4 subaxnimo iyadoo asaadii subax la tukan 3 saacadood markii uu soconayay muuse saldhigyadiisii oo dhan waa lala wareegay waxaa lagala wareegay saldhiggii maraaga waxaa lagala wareegay kii gooja cadde waxaa lagala wareegay kii ara caddeeye waxaa lagala wareegay kii hargaya waxaa lagala wareegay kii sabakaab waxaa lagala wareegay kii sii hawle kii yagoori kii guumays oo hadeer taagannahay muuse waxa maanta ku gaaray jab maahe waa ceeb aadan weliga ka soo waaqsanayn muuse waxa maanta soo gaaray jab ciidan maaha waa ceeb iyo fadeexad la socon doonta taariikhda soomaaliyiinta ay qormayso oo dhan natiijadii ka dhalatay dagaalkaasi waxay noqotay in dhammaanba goobihii la isku helay ay ku gacan sarreeyeen xoogagga xaqudirirka ah ee SSC iyo hir harti natiijadii ka dhalatay waxay noqotay in muuse lala wareegay gaadiidkiisii dagaalka ee ugu badnaa gaadiidka lagala wareegay muuse waxay ka kooban yihiin taangiyadii dagaalka beebayaalkii suugii teedhisabankii iyo wax allaale iyo wixii uu ciidankiisa ku soo horeeyey waa lala wareegay waxaa ka mid ah BMkii baa ka mid oo lagala wareegay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka SSC waxaan u sheegayaa gaadiidkii dagaalka ee maanta halkaa lagula kala wareegay weli taariikhda soomaaliya kama dhicin awoodda ilaahay ka sokow idinkaa suuro geliyay in gaadiidkaa lala wareego waxa weeye guul baynu joognaa muuse waxaa laga qabtay maxaabiis aanu tiradeeda dib ka soo sheegi doonno oo 100 gaaraysa maxaabiistaasi waxay isugu jirtaa kuwa dad qaba waxay isugu jirtaa kuwa dhaawaca hosbitaalladii baanu geynay waa dawaynaynaa sidii garaadadu sheegeen ma gunnimo dagaalamayno ma argoosanayno hadda hadalkaa dhegaysta shacabka reer SSC ma gunnimo dagaalamayno ma argoosanayno argoosi waxaa inoogu filan
guusha aynu maanta muuse ka hantilay maxaabiista laga qabtay waa maxaabiis dagaal xeerarka caalamiga ah ee maxaabiis dagaal la marsiiyo baynu marsiinaynaa dhaawaca laga qabtay ee la hayo waa dhaawac maxaabiiseed waxay xaq u leeyihiin dawo iyo daryeel isla markaana la marsiiyo xuquuqdii maxaabiiseed iyo shuruucdii ay maxaabiista caalamku ay lahayd intaa caalamka waa u sheegaynaa soomaali waa u sheegaynaa beelahan muuse soo khaldayna waa u sheegaynaa beelahan aanu deriska nahay ee inamadoodii ku soo guray gooja cadde iyo hareeraheeda waxaad galabsateen baa inamadiinnii gaadhay haddaad ku faraxsanaydeen madfaca laascaanood ku dhacaya haddaad ku faraxsanaydeen barakaca laascaanood laga barakacay annagu maanta waxaannu ku faraxsannahay guusha ilaahayna siiyey ee u nambakansiiyey halkaa waxaa nooga muuqanaya magaaladii oog baa noo muuqanaysa cidi nagama hortaagna ilaahay ka sakow cid naga hortaagana ma jirto qiyamtayada iyo sharaftayada iyo magacayadaa naga hortaagan inaannu maatida oog taalla madfac la dhacno aanu barakicinno ma barakicinayno oog iyo deegaanada la halmaala ma duqayranno laascaanood ugu aari mayno waa ka gobaysannahay rag waxaa sameeya ciidamada xaqudirirka ah ee SSC iyo heelharti waxaa halkan ka faraya waxaynu u baahannahay in ciidamada laga saaro magaalooyinka oo dhan in la isugu geeyo xuduudda salinta iyo wixii ka shisheeya difaacana la adkeeyo mar kalean ku celinayaa ciidamada xaqudirirkaahi ha ka baxaan magaalooyinka oo dhan ha soo buuxiyaan goobaha ugu horreeya ee dalkeenna aynu ka difaacayna haddii ilahay ka dhigo insha allahu tacaala markaan sidaa idin leeyahay ka biqi maayo muuse soo rogaal celiya muuse waa dhintay waa idin daayey muuse waxaan leeyahay war muusow macasyow maxaad maantoo kale u soo dhigatay maxaad meel u soo dhigatay maantoo kale kibirkii iyo afkii aad taagaysay sidii orgi dacarsanaya maxaad ka dheeftay muusow kibirkii maxaad ka dheeftay inama soomaaliyeed oo aanaan dhiiggooda doonayn oo aanaan dilkooda doonayn baad nagu sababtay inaannu saaka weerar ku ekayno wixii dhintay waa dhinteen wixii aannu qabannay waa haynaa waana badbaadinaynaa war dadka inta kala dibindaabyada ka daa annagii dadka aad soo khaldasay isdhal baannu nahay ehel baannu nahay qaraa baannu nahay war dadkaasoo mar damba muuse yu idin soo khaldin waxaannu garanayna garta ugu dambayntii deegaanada SSC waa in ammaanka la sugaa waa in nidaamka la soo celiyaa waa in kala dambayntii la soo celiyaa maxaabiista horaan uga hadlay dhulka lala wareegay waa in amnigooda la sugaa dadka deggani waa inay ogaadaan oo ku talagalaan waxa u yimi ciidamadoodii waxa u yimi inamadoodii waxay u yimaadeen inay heeryadii muuse ka dulqaadaan waana ku guulaysteen waxaan halkan uga mahadnaqayaa inamadii iyo hablihii la baxay jamaahiirta ee bilaabay kacdoonkii buluugga ahaa ee dhagax tuurka ay ku soo bilaabeen dhagixii aad tuurayseen ee looga jawaabay xabbadda dhashiikaha maanta waa la soo afjaray xabbaddii dhashiikaha ahayd jamaahiiray idinkoo xor ah idinka oo aan innaba dareemin wax cuqdadiiyo caburisa intiina hadhay farxad ku damaashaada intii dhimatay waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantay allah u boogadhayo jamaahiirtu ha noolaato SSC ha noolaato soomaaliya ha noolaato ha israaca soomaaliya waxaana ilaahay inaanu mahad celiyo maamulka iyo xukuumadda puntland dowladda puntland inaanu mahad celiyo ma ka hafafayo waa ku mahadsan yihiin isgarabtaaggii waa ku mahadsan yihiin taageeradii waa ku mahadsan yihiin wadadhabashadii muujiyeen waxaan kaloo u mahadnaqayaa dowladda federaalka ee soomaaliyeed dowrkii ay ka qaadatay qaraaraadkii ka soo baxay golihii ammaanka ee qaramada midoobay ee muuse loogu sheegay inuu xadgudub samaynayo
waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo madaxdeeda dowrkii ku aadanaa deegaanadan SSC iyo xuquuqdii dadkani ay lahaayeen inay ku soo dhowaadaan oo ay dadka kani ka helaan baan ugu baaqayaa haddii shalayto muuse iyo halkeenaa ka taliya beentiisay noqotay ishii bugta ay ku bikaacso reer SSC baa ka taliya iyagaa ka talin doona iyagaa joogi doona ilaa qiyaamuhu ka dhacayo soomaaliya ha noolaato SSC ha noolaato SSC ha noolaato SSC ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maleeshiyaadka ku soo xadgudbay ay ka sifeeyaan intaasoo ujeeddada dagaalkaasi maanta u lahaa ilaahay fadligiisa ujeeddooyinkii loo asteeyey dagaalka saaka aanu ku qaadnay muuse iyo maleeshiyaadkiisa waa laga wada gaaray ujeeddooyinkii oo dhan maasha allah midnimadii soomaaliya maanta waa soo noqotay wadajirkii ummadda soomaaliyeed maanta waa soo noqday reer SSC dagaalkoodii waa ka sifeeyeen xadgudubkii lagu waday reer SSC maleeshiyaadkii ku soo xadgudbay waa ka sifeeyeen geygooda ilaah baa mahaddaa iskale ilaahay ka sakowna xoogagga xaqudirirka ah ee wiilal iyo gabdhaba leh ee reer SSC iyo hil harti baa iskale mahaddaa dagaalkaasi wuxuu bilaabmay saaka aroortii 4tii subaxnimo iyadoo asaadii subax la tukan 3 saacadood markii uu soconayey muuse saldhigyadiisii oo dhan waa lala wareegay waxaa lagala wareegay saldhiggii maraaga waxaa lagala wareegay kii gooja cadde waxaa lagala wareegay kii ara caddeeye waxaa lagala wareegay kii hargaya waxaa lagala wareegay kii sabakaab waxaa lagala wareegay kii sii hawle kii yagoori kii guumays oo haddeer taagan dhahay muuse waxa maanta ku gaaray jab maahe waa ceeb aadan weliga ka soo waaqsanayn muuse waxa maanta soo gaadhay jab ciidan maaha waa ceeb iyo fadeexad la socon doonta taariikhda soomaaliyiinta ay qormayso oo dhan natiijadii ka dhalatay dagaalkaasi waxay noqotay in dhammaanba goobihii laysku helay ay ku gacan sarreeyeen xoogagga xaqudirirka ah ee SSC iyo hil harti natiijadii ka dhalatay waxay noqotay in muuse lala wareegay gaadiidkiisii dagaalka ee ugu badnaa gaadiidka lagala wareegay muuse waxay ka kooban yihiin taangiyadii dagaalka beebayaalkii suugii teedhisabankii iyo wax allaale iyo wixii uu ciidankiisa ku soo horeeyey waa lala wareegay waxaa ka mid ah BMkii baa ka midoo lagala wareegay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka SSC waxaan u sheegayaa gaadiidkii dagaalka ee maanta halkaa lagula kala wareegay weli taariikhda soomaaliya kama dhicin awoodda ilaahay ka sokow idinkaa suuro geliya in gaadiidkaa lala wareego waxa weeye guul baynu joognaa muuse waxaa laga qabtay maxaabiis aanu tiradeeda dib ka soo sheegi doonno oo boqol gaaraysa maxaabiistaasi waxay isugu jirtaa kuwa dad qaba waxay isugu jirtaa kuwa dhaawaca hosbitaalladii baanu geynay waa dawaynaynaa sidii garaadadu sheegeen ma gunnima dagaalamayno ma argoosanayno hadda hadalkaa dhegaysta shacabka reer SSC ma gunnima dagaalamayno ma argoosanayno argoosi waxaa inoogu filan guusha aynu maanta muuse ka hantilay maxaabiista laga qabtay waa maxaabiis dagaal xeerarka caalamiga ah ee maxaabiis dagaal la marsiiyo baynu marsiinaynaa dhaawaca laga qabtay ee la hayo waa dhaawac maxaabiiseed waxay xaq u leeyihiin dawo iyo daryeel islamarkaana la marsiiyo xuquuqdii maxaabiiseed iyo shuruucdii ay maxaabiista caalamku ay lahayd intaa caalamka waa u sheegaynaa soomaali waa u sheegaynaa beelahan muuse soo khaldayna waa u sheegaynaa beelahan aanu deriska nahay
ee inamadoodii ku soo guray gooja cadde iyo hareeraheeda waxaad galabsateen baa inamadiinnii gaadhay waxaad galabsateen baa inamadiinnii gaadhay haddaad ku faraxsanaydeen madfaca laascaanood ku dhacaya haddaad ku faraxsanaydeen barakaca laascaanood laga barakacay annagu maanta waxaannu ku faraxsannahay guusha ilaahayna siiyey ee una makansiiyey halkaa waxaa nooga muuqanaya magaaladii oog baa noo muuqanaysa cidi nagama hortaagna ilaahay ka sakow cid naga hortaagana ma jirto qiyamtayada iyo sharaftayada iyo magacayadaa naga hortaagan inaannu maatida oog taalla madfac la dhacno aanu barakicinno ma barakicinayno oog iyo deegaanada la halmaala ma duqayranno laascaanood ugu aari mayno waa ka gobaysannahay rag waxaa sameeya ciidamada xaqudirirka ah ee SSC iyo heelharti waxaa halkan ka faraya waxaynu u baahannahay in ciidamada laga saaro magaalooyinka oo dhan in la isugu geeyo xuduudda salinta iyo wixii ka shisheeya difaacana la adkeeyo mar kalaan ku celinayaa ciidamada xaqudirirkaahi ha ka baxaan magaalooyinka oo dhan ha soo buuxiyaan goobaha ugu horeeya ee dalkeenna aynu ka difaacayna haddii ilahay ka dhigo insha allahu tacaala markaan sidaa idin leeyahay ka biqi maayo muuse soo rogaal celiya muuse waa dhintay waa idin daayey muuse waxaan leeyahay war muusow nacasyow maxaad maantoo kale u soo dhigatay maxaad meel u soo dhigatay maantoo kale kibirkii iyo afkii aad taagaysay sidii orgi dacarsanaya maxaad ka dheeftay muusow kibirkii maxaad ka dheeftay inama soomaaliyeed oo aanaan dhiiggooda doonayn oo aanaan dilkooda doonayn baad nagu sababtay aanu saaka weerara ku ekayno wixii dhintay waa dhinteen wixii aannu qabannay waa haynaa waana badbaadinaynaa war dadka inta kala dibindaabyada ka daa annagii dadka aad soo khaldasaay isdhal baannu nahay ehel baannu nahay qaraa baannu nahay war dadkaasoo mar damba muuse yu idin soo khaldin waxaannu garanayna garta ugu dambayntii deegaanada SSC waa in ammaanka la sugaa waa in nidaamka la soo celiyaa waa in kala dambayntii la soo celiyaa maxaabiista horaan uga hadlay dhulka lala wareegay waa in amnigooda la sugaa dadka deggani waa inay ogaadaan oo ku talagalaan waxa u yimi ciidamadoodii waxa u yimi inamadoodii waxay u yimaadeen inay heeryadii muuse ka dulqaadaan waana ku guulaysteen waxaan halkan uga mahadnaqayaa inamadii iyo hablihii la baxay jamaahiirta ee bilaabay kacdoonkii buluugga ahaa ee dhagaxtuurka ay ku soo bilaabeen dhagixii aad tuurayseen ee looga jawaabay xabbadda dhashiikaha maanta waa la soo afjaray xabbaddii dhashiikaha ahayd jamaahiiray idinkoo xor ah idinka oo aan innaba dareemin wax cuqdadiiyo caburisa intiina hadhay farxad ku damaashaada intii dhimatay waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantay allah u boogadhayo jamaahiirtu ha noolaato SSC ha noolaato soomaaliya ha noolaato ha israaca soomaaliya waxaana ilaa inaanu mahad celiyo maamulka iyo xukuumadda puntland dowladda puntland inaanu mahad celiyo ma ka hafafayo waa ku mahadsan yihiin isgarabtaaggii waa ku mahadsan yihiin taageeradii waa ku mahadsan yihiin wadadhabashadii muujiyeen waxaan kaloo u mahadnaqayaa dowladda federaalka ee soomaaliyeed dowrkii ay ka qaadatay qaraaraadkii ka soo baxay golihii ammaanka ee qaramada midoobay ee muuse loogu sheegay inuu xadgudub samaynayo waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo madaxdeeda dowrkii ku aadanaa deegaanadan SSC iyo xuquuqdii dadkani ay lahaayeen inay ku soo dhowaadaan oo ay dadka kani ka helaan baan ugu baaqayaa haddii shalayto muuse iyo halkan anaa ka taliya beentiisay noqotay ishii bugta ay ku bikaacso reer SSC baa ka taliya iyagaa ka talin doona iyagaa joogi doona ilaa qiyaamuhu ka dhacayo soomaaliya ha noolaato SSC ha noolaato SSC ha noolaato SSC ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
faysal cabdi bootaanka halkan joogana maxkamad baa la saarayaayo daahir yaa shamis maxkamaddaasa la geenaya jurishiriga garsoorkaasa la marinaya ummadoo dhan life baa la shidaya international community-ga iyo Soomaalidu meel ay joogtaaba way daawanayaan intaasoo kun oo qof buu barakiciyay intaasoo kun oo qof buu laayay isagii reerkiisuba dagaalka toos buu ugu jiray iyo qofku maadaama maxbuus yahay la ixtiraamaanay mudnayn adeer gobonimadu ka badbadin maaha Soomaaliga gobonimada in la aanbado adeer la aanban mayna farxadu inaga tabmadin waxa ay gobonimadu ma gaadhi lagu jiiday meel la dilo wadigaarkiina ma yareeyo 18 jir baa qabtay mas'uuliyadooda Soomaaliga adeer waxa way gobonimadu ka badbadin muxuu ahaa mar in cabdi bootaan wuxuu u geystay duwan oo record ah ba muxuu ahaa ba meel walba yaal isaga dagaalka toos ugu jiray reerkiisana ku jiray wixii halka ka dhacayna marka isaaq qodhan baa ku guuday marka isaaq laga yimaadana wixii halka ka dhacay habar jecel ku jirtay isirnacay bay ugu jirtay reerkiisa dadka xasuuqay hadeer ku og talaayay kale waa ina kaahin iyo kale yaada muxuu Allah musta'aan iyo giraha mid giraha yiraahdaan muxuu ahaa reebaadiyaha gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golahooda baarlamaanka Islam sumad fahmi iyaga dagaalka talaayay ugu jiray hadeer hadii odayaal leeyihiin sida odayaashii hartiyo kale noqonaa shalay markii guumeys xuduudii la tagay garajaam laba garajaamac iyo maxaa iyo hogaamiyo firdhiye cabsaaq ciidanka isku duubo yiri war dulmi ciidanku ma sameyn kara xuduudeena aan ku ekaano adeer ma sida garaadiga dhaqan yeesaasin yeeshaan habar jecel meesaasintoodii yiraahdaan maxaa jooga si shalay ciidamada og looga joojiyay shalay og waxa weeye badna maxabis baa loo soo qaadi kar lahaa badna waxa weeye cagta la soo marin kar lahaa Soomaaliga taadir koraanaga ma waxa weeye dib nin baa yiri wiilashiisa muxuu ahaa wiilaan dhalin garaaca ku jira markaas la yiri waa kaasoo yaanu sheegi maayay isaga is sheegaya waxa weeye guushana waa noqonaa guuldaradana waa noqonaa shalay og markii la galiyay dabcan la galo wadiga arkay ismadii iyo siyaasiyiintii deegaanku iyo hogaamiyihii inay lama gali karayo inaga dulmi ka dagaalanay dad maata waxba maxaa u geysan meeyna maadaama ku inay dagaalamay badna aynu laynay badna aynu qabanay badna ay carareen dadka birmageydada ee caruurta iyo dumarka iyo maxasta tulooyinka jooga wadir og dhikadeeda doodi baan soo marnay og dhikadeeda og waa noo muuqata anagu Soomaaliga waxa weeye muxuu ahaa wadanka saasa gacan loogu dhiga marka waxa way adeer anagu inda dulmiimeena dhulkayga baan xoreysanay dhulkaygaanu maamulayna uga jawaabay Jabuutaawi marna maadeer baan mar waqtiga waan saxaya laakiin anaga muxuu sameeyay oo khalday waa ka saxaysan waxa ka saxaya anaga isaaqo col baanuna Soomaaliga regime iyo dawlad nagu soo duushay ay leeyihiin iyo system nagu soo duuray ma jiro reer baan nagu soo duuray reer baan la dagaalan Soomaaliga dhulkaygana reer baa ku soo duuray Soomaaliland adduuna ma aqoonsana madaxweynuhu waa reer xisbiyada mucaaradku waa reer saraakiishna leeynay aan qaar haynaa waa reer waxaan isku nahay ma faysal cabdi bootaanka halkan joogana maxkamad baa la saarayaayo daahir yaa shamis maxkamaddaasa la geenaya jurishiriga garsoorkaasa la marinaya ummadoo dhan life baa la shidaya international community-ga iyo Soomaalidu meel ay joogtaaba way daawanayaan intaasoo kun oo qof buu barakiciyay intaasoo kun oo qof buu laayay isagii reerkiisuba dagaalka toos buu ugu jiray isaguna waa gacan ku biigli waa isagoo ninka maatada xasuuqay aniga adeer Axmed Raan iyo gadhabay soo garmays 2004 waxay muxuu ahaa bay qabteen iyaga maxaabiis ragoo Israa'iil ahaayeen gaari dabada ugu xidhan way laayeen maanta in cabdi bootaan baa muxuu ahaa boqol fadhi rabeen oo ka soo hadlo lama oran karo waa imsa 180 maxaabiis la boqol dhawaad baa la hayaa qof la dilay qof qaar baa dhakhtarada waxa weeye maxaa emergency galay daqiiqada la operation lagu sameeyay oo muxuu ahaa ismada iyo hogaamadu ay taagnaayeen adeer waxa weeye gobonimadu ka badbadin muxuu ahaa mar in cabdi bootaan wuxuu u geystay duwan oo record ah ba muxuu ahaa ba meel walba yaal isaga dagaalka toos ugu jiray reerkiisana ku jiray wixii halka ka dhacayna marka isaaq qodhan baa ku guuday marka isaaq laga yimaadana wixii halka ka dhacay habar jecel ku jirtay isirnacay bay ugu jirtay reerkiisa dadka xasuuqay hadeer ku og talaayay kale waa ina kaahin iyo kale yaada muxuu Allah musta'aan iyo giraha mid giraha yiraahdaan muxuu ahaa reebaadiyaha gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golahooda baarlamaanka Islam sumad fahmi iyaga dagaalka talaayay ugu jiray hadeerna habar jecel waxaanu kala helno cidda shalay garaadadu dadka ka bariyeen maxamed Jabuutaawi hadalkiisa waxa kamid ahaa wuxuu yiri muxuu ahaa Allah musta'aan wuxuu yiri dadka siyaasiyiin baa dadka kala dilayo shacabka muxuu ahaa dadka shacabka xoos kuma isku muxuu ahaa xoos kuma qabaan Muuse dadka kala dilay Muuse ma kala dilay isma ma kaaleen habar jecelo adeer kelmadaas aan daba socdaay Maxamed Jabuutaawi wuxuu yiri dadku muxuu ahaa col maaha isaaqil maanta iyo harta col maaha siyaasiyiin baa kala dhashay siyaasiyiin kuma dhashqeen col waana imsaysan bay habar jecel leedahay imsa qoyaan beel imsa ganacsi leedahay qof habar jecel oo ka hadlayo war ciidankiina ay ka soo dulqaadno nimanka dhulka jooga ee bishii rabadaan dadku yimaatadu ka soo mi kar waayeen muxuu ahaa soo yaga ilaa culimadoodii sumad fahmi hadii odayaal leeyihiin sida odayaashii hartiyo kale noqonaa shalay markii guumeys xuduudii la tagay garajaam laba garajaamac iyo muxuu ahaa iyo hogaamiyo firdhiye cabsaaq ciidanka isku duubo yiri war dulmi ciidanku ma sameyn kara xuduudeena aan ku ekaano adeer ma sida garaadiga dhaqan yeesaasin yeeshaan habar jecel meesaasintoodii yiraahdaan muxuu jooga si shalay ciidamada og looga joojiyay shalay og waxa weeye badna maxabis baa loo soo qaadi kar lahaa badna waxa weeye cagta la soo marin kar lahaa Soomaaliga sida dadkaas dhaqan u yeesheen oo talo u yeesheen oo yiraahdeen hadii maatadeen la maata kale layn mayno oo dad islaam ah nahay birmageyda waxayn mayno waxa weeye laan dheerayna adeer waxa weeye bayraanahay habar jecel dagaalkan way ku jirtaa lagana xari maayo wixii ka dhacay meeshan iyaga lagu xisaabtamay waan maxaabiista aan ku wareejiyay saaka saldhigga booliska degmada Laascanood aan ku wareejiyay aan ka qabtay ciidamada Soomaaliland ee ku soo duuladaankayga
dhowr iyo 10 nin waxay ugu xariisantaa degmada Gambare qaybna waxaan ku xareeyay oo taaka ogeedeen xabsiga degmada Laascanood haddar markaan soo aaday maxaabiistan intaan la wareegay lagu wareejiyay waxaana ku wareejinayaa taliyaha booliska degmada Laascanood waad iga tadsan kartaa jaal taliya maxaabiista halka ka arin waxaan leenahay ciidamada SSC waa guuleystay haddar saan warka ku hayo abay salbi xabado ka socota insha Allah inta yara hadhana waraysaa insha Allah waan guuleysan وين معاه صوت سعود معاه دونيسن روح يا اسكال من هذا جدك حافرين فرسان عيدنا سوى الله يوصل هاي كون هذيك حاس لا حاس لا قصد baabuurtaas waa gaari beebaa iyo gaari kale oo qabaala oo calaamadoodii noo taa markii la baxsanayo iskaleen alla fadalkoodii laga cabay walika beebaha ka waran togaasi ku dhacay la baxsanayo ciidamada SSC Khaatumo ayaa cagta mariyay waa beebihii shanaad aan indhahay ku arko kaarayaashan oo kaariis dhaxal indhahay ku qabtaan oo kuwa jabkoodii wata anagu waxay been ma waxa cad weey waxa cad gumeedka waxa la yiri gumeedka marka nabadu joogto futadiisa irbadi ma mari kado markii rag helo oo xabad dhacdana in tareeya futadiisku kala wareega Muuse Biix maanta in tareeya futadiisku kala wareegay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo magacaygu yahay Cabdirasaaq Korneyl Cabdirasaaq Aadan Samweyne kana tirsan guutada 15aad ee Duufaan kana soo ruuqaastay saaka meesha la yiraahdo agagaarka Maraaga waxaanu ku soo marnay si la yaab leh waxaanu asaruuray difaaciyadii ay lahaayeen ciidamada cadow waxay u fadhii waayeen rasaasta iyo qaabka ciidanku u galay dagaalka ilaa iyo waxaanu wadnay gooja cadde ay ka galeen waanu kala baxnay hadda waxay marayaan nin og ayay ku dhow yihiin waxaanu qabanay maxaabiis aad u fara badan qaybtood waxaanu u gudbinay gobolka Nugaal taliyihii guutada ka hadlay qalyare wax la yeelay ma jiraan waxa weeye arintu sidaas u dhacday meeshan waa warshadii biyaha inta ay haysteen dhulkan ummadda waxay ku hayeen dhibaato aad u fara badan waxay ku leeyin jireen madaxduub boqolaal bay madaxduub ku dileen waxay duqayeen magaaladii wax yar baa magaalada ka taagan guryaheedii maatadii waa laayeen dumarkii waa xasuuqeen ciyaalkii waa laayeen waa barakiciyeen intaa waxaanu lahayn haddaanu nahay beesha harti waxaanu lahayn allihiin hadduu alla yahay orda naga taga dhiiggiinnu waa naga xaaraansan yahay naga baxa naga taga way diideen xalay buu dhacay go'aankii u dambeeyey in muxuu ahaayey gacanta la isula tago nus saac bay qaadan weyday nus saac inay isdifaacaan bay qaadan waayeen waxaa la yidhi marka inan gumeedka marka nabadu joogto futadiisa irbadi ma mari kadho markii rag helo oo xabad dhacdana in tareeya futadiisku kala wareega Muuse Biix maanta in tareeya futadiisku kala wareegay waxaanu u sheegaynaa inaan lagaga harayn inta xuduudda muxuu gobolka Sool iyo Cayn lagaga harimay inta hartidago lagaga harimay waxa weeye isaaq way ismahadiyeen ma garateen laakiin waxaanu u sheegaynaa waxa aanu nahay haddaanu nahay beesha harti ama se daarood ama se Soomaali waa diideen inaanu tusayno waanu tusnay waxay yihiin dibna waa loo sii tusi doonaa عبدالله وعبدالله فرح البيك بديع هل يقرن كاس السيني خطوه وانا ركتان
qoran CQ 0719 halkan akhri CQ 0719 موسى وسيع ولا بالله يطلع عاونا وعينا وعشر ولا وعوان ودافعنا واهل قيسا يا بربرة موسى تاكو ابشر هو يلانا والله وصا ويلانا والله وصا waxaanu u sheegaynay 8 bilood oo war carruurtaada iyo gaadidkaaga xalso haddaan u kacno waxaynahay argagixisadii hobatay ee aakhira hooyatay haddo soo gadhqadiya wadkaa soo hogaansadaye malaggii u gacan hadiyaa soo hor joogsadaye hareeraha sidii looga marayen haluga figin iyagiyo hubkoodii sidii holaaca loo saaray taariikhda habsami loogu qori waana lagu hayno ku hongoobe damiciyo hankaynagu hawaysteene heelkiyo kuwii ciddayada soo hunguuriyayey ee soo habaabe inaan hurudna moodayey hubaal ciidamada qalabka sidoo heegan gaalay buuxa inamiyo hablaba shacabka oo hilla gaarab jooga madaxdiiyo hoggaankii sarojidda hore taagan ayuunbay hululugu galeen lana halakaye hilbaha iyo maydkoodiyo haatan tira beela haadiyo warabuhu bagay ka haddo soo gadhqadiya wadkaa soo hoggaansadaye malaggii u gacan hadiyaa soo hor joogsadaye hareeraha sidii looga marayen haluga figin iyagiyo hubkoodii sidii holaaca loo saaray taariikhda habsami loogu qori waana lagu hayno ku hongoobe damiciyo hankaynagu hawaysteene heelkiyo kuwii ciddayada soo hunguuriyayey ee soo habaabe inaan hurudna moodayey hubaal ciidamada qalabka sidoo heegan gaalay buuxa inamiyo hablaba shacabka oo hilla gaarab jooga madaxdiiyo hoggaankii sarojidda hore taagan ayuunbay hululugu galeen lana halakaye hilbaha iyo maydkoodiyo haatan tira beela haadiyo dhammaan waxaan salaamayaa maamulka SSC iyo dawladdiisa iyo xukuumaddiisa iyo ciidankiisa qadeer waxaanu ku sugannahay aanu joognaa annagu ciidankii baanu nahay qaranka ee SSC waxaanu ku sugannahay xuduudaha ayagii salinta meesha leeyaan taagannahay oo 8 kilomitir bay noo jirta haddaannu gardarro rabno oo dulmi rabno horaanu ugu socon lahay waxba naguma qaadateen sidaa darteed annagu dulmi ma rabno qaadanna mayno iyagaa dulmi qaatay kuna buuxsamay inaannu intaa u dhaafno lama rabno hadday soo dhaqaaqaanna iyagaa isog burcaa muran gelaysa burco ma garas baa muran gelaysa ma garas sidaa ogaadeen alxamdulillahi rabbilcaalamiin bismillahi raxmaan raxiim ilaahay waa mahad leh maanta waa u jeedaan meesha aan joognaa waa gumays iyo og dhexdooda abaar og waxay noo jirtaa haddeertaan saan qiyaasayo ilaa 8 kilomitir wax ka yar annagu waxaan joognaa xuduuddii aan lahayn baan joognaa muuse shalay wuxuu lahaa waxaan tegaynaa ciidanka qaranka waxay tegayaan meesha la yidhaahdo xuduuddii waa beentaa baan leenahay annaga maanta xuduuddayadii joognaa meesha aan joognaa waa xuduuddayadii weliba middii ingiriisku naga qaaday oo in badan baa naga shisheeya laakiin deegaan ahaan waxaan joognaa deegaankayagii in allaala iyo intii hadday xabad wax ka mida dhaqdhaqaaq sameeyaanna waxaan tegaynaa intii horay gumaystuu nooga qaaday oo ah ilaa labada gaatama dhammaan halkan waa u jeedaan maanta ciidamadii iyo wixii dhan waa joogaan gaadiidkii waa joogaa hubka dhigistii kuwii aan ku samaynay aad wadateen baa soo galay difaac hadda maanta waxaa jooga muuse iyo taaniyow gaadiidkii aad wadateen oo aad ascaanood la timaadeen maanta waxay joogaan meesha la yidhaahdo sarinta intaas baan leeyahay muuse aduu xuduud ma lahayna meesha xuduuddeydii maanta annagaa joogna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي أي مهدي أسقناتي وحن كسقناهاي حدود كيجي سلنت أوج يجوبيس الحضارة هالكاس حدود يدي كله ذهي أما أي تهيبة وحوية إبنك وحي كده ميانا قبضة سعيدة كسقنانا يان هدي أن نكدر من
dhaqdhaqaaq nimankaas cadowga noo ahaa ee dhulkayaga nagu haystay oo aanan dhulkooda u socon ee aanu ku tegi lahayn ilaa iyo meel allaali meeshaan doonno awoodda rabbi subxaanahu wa tacaala uuna siiyey aanu ku gaari karray haddana sidaan horey idinku sheegay garaadadayada iyo isimada harti ayaa waxay nagu sameeyeen inaan goobaha ku sugnaano dhaliya inankii isaar gaariga isaar sheeg ciddaa tahay sheeg khaliis dhaliya inanki isaar gaariga ana garan kuwaad madaafiicda la dhici jirtay baan rabnaa aamindee baabuurtaas waa gaari beebaa iyo gaari kale oo qabaala oo calaamadeedii wataa markii la baacsanayo iskaleen alla fadalkoodii laga cabay balliga beebaha ka waran togaasi ku dhacday la baacsanayo ciidamada SSC Khaatumo ayaa cagta mariyay waa beebihii shanaad aan indhahay ku arko kaarayaashan oo taariikh dhaxal indhahay ku qabtaan oo kuwa jabkoodii wataa annagu waxay been maaha waxa cad weeye waxa cad bismillahir rahmaanir rahiim kan waa kaarihii kaasina waa BMK magaalada lagu duqeyn jiray waxaa mucjiso ah gurigaas inuu ku dhacay halkaas ku dhacay halkaa uu ku dhacay meeshaa daloosha madfac baa ku dhacay halkaa waad artaan gurigaas waa guriga agoomaha waa meeshii madfac ku dhacay alaabtii lagu soo duqeyn jirayna wataa waa mucjisooyinka ka mid tahay wax 10 tallaabo oo jira 10 tallaabo ayaa la soo dhigay madaafiicda lagu garaaci jiray kaasina waa BMK kana waa kaarihii waxaasoo baabuur ordaysa waa ciidamada SSC ay baxsanayaan huunada Soomaaliland waa arkaan gooja caday siigaya waa kuwa ragga maraya kala soo kacay dhanka bariga wax badan bay baratay maraya maxaa loo qaban waayay gooja caday maxaa loo qaban waayay hartigii meey waxaa soo gurmanaya waa ciidamada SSC ay dhanka maraya ka soo gurmanaya صيع ورهرب صعد واحد ما دسيو نمك بحسنايا ها halkaas waa wasadii iyo halkaas hadda naga soo xigtaa waxaan dhinacaas naga soo xigtaa hadda halka waa meel ka buraatadooyinka هاي سو دوال وكيل شقاقنا وما سنتي هاي هذا كان واتلسود من كم ساعة كعرين وهو إذا ما جبا ساعة غنيمة سنة وحي كعرين يعني وارد اسكرونا ما ياك عري اسكرونا ما ياك عري كده سي هاي كور كل سنه ما كل سنه كنا انا سنه قول يا نبي قول يا قبل وصي صحنا هرو صحنا هاي واحد بدل بطي
واحد بدن بيكوتش عدي سوقي هاي ساكنا كوتش عدي سوقي كحا حصدي وايا واكو وارد واحد وكذي بعد وحريق أبوه أبوه أجروا يكون كوج على ما يجري يتليه عينك فريسان جري كاسو فسوها حاسة واحد كحلا فيلوينه kuwaasina waa maxaabiistii waataad soo socotay ee lagu taag la'aa ahey soo maaratid inta dambena la kaalaya waryaa hadii waryaa hoy taabina farha saarina saa ku lagu xereeyo ها غير كحاية ما أنت هرمدي لا دنيا لا هيا هرمدي لا دنيا ما أنت ولا لا هيا وما شرتين صوصة ما شرتين عالم كو قلي سومالي لان وحنوش يا شعبك سومالي لان عالم كو قلي عيلكم قبتي عوسك دبده يعرولو كا عيليان عيل ما كو قبتا نين با كو هيسي وكوا عرفت يسكتوا جيران وران جيران gooch cadaan ku badnaynayo iyo gooch cadaan baa geersaa loo gariyaa wata naga baad taagay adeer u kaalay wata sidaas idin jirta hooyadan gooch cadaan wata cagafto wata gooch cadaan la ii sheegay in badan baa isku soo duubeen laakiin maanta ma soo gari karaan too soo gala maanta wataas hooyadan naga usnee gafiye maanta soo gala raga daatiin maanta rag وين معاه صوت انتادو ما دونيسين روح يا اسكلا ما قادر افتا حافرنا فرسان عيدها سؤال لا مصر هاي هون هذه حاس لا قصد ninkii ugu dhibta badnaa saraakiisha isaaq ugu dhibta badnaa ilaahay gacantayda soo geliyay waxna cidin geysan waa ninkii la oran jiray Faysal Cabdi Bootaan ninkii dad dumarka layn jiray dumaatada marfaca ku garaaci jiray moolaayay awoodda uu maanta haysto inuu weliga haysanayo sida uu doono u xadgudbay gacantaydu ku jira waana la maxkamadayn doonaa insha Allah maxkamad baa la marinaya insha Allah soo dhow daawade xogtan aan ku wado xilligan waa mid aan u wanaagsanayn dhagaha dadka ku dhaqan deegaanada maamulka Somaliland waana arin dhabar jab ku ah madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi balse waa khasab inaan xogtan kula wadaago saraakiisha ugu sarreysa SSC Khaatumo ayaa xilligan waxa ka soo yeeray war aan u wanaagsanayn hogaaminta maamulka Muuse Biixi Cabdi kaasi oo ah in la maxkamadayn doono maxkamadna ay soo taagi doonaan Faysal Cabdi Bootaan oo ah generaalkii hogaaminayay
ciidamadii ku sugnaa xerada gooja cadde oo ay dhowaan la wareegeen ciidamada SSC Khaatumo sargaal sare oo u hadlay ciidamada dadka deegaanka ee SSC waxa uu sheegay in aan la aqbali doonin in dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaanood muddada 7 bilood ahna soo socday ciddii ka dambeysay isla markaana hogaaminaysay in si dheelleel ah gacantooda uga baxsado waxa uu tilmaamay in SSC golaheeda ugu sareeyay ay ka shireen in la maxkamadeeyo Faysal Cabdi Bootaan oo ah generaalkii hogaaminayay ciidamada Somaliland ee ku sugnaa aagga gooja cadde halkaasi oo muddo ku dhow 1 sano laga soo duqeynayay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool duqeyntaasna ay ku geeriyoodeen dad badan oo waxgal ah oo qayb ka ahaa abwaan jaamac kadiye waxa uu sheegay in xilligan la isla gartay in maxkamad cadaalad ah la soo taago si sharciga loo marsiiyo isla markaasina looga argudo dadkii waxyeelada kala duwanaa oo u geystay intii dagaalkaasi uu socday waxa uu sheegay in Faysal Cabdi Bootaan oo ahaa qofkii ugu dhibka badnaa ee xilligan madaafiicda ku soo hogaamin jiray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isla markaasina iminka uu gacanta ugu jiro bal aan wada dhageysano codka sargaalkan sare ee ka tirsan SSC oo ka hadlay arrintan iyo sidoo kale maxkamadeynta xilliga ay dhici doonto saakada tan waxaa la soo qabtay maxaabiis godad ku jirtay oo dhulkaas dhexe godad iska gashay markay dhulkii garan weynayo gaajo iyo haraad u baqtiyasaan intii cunin baa saakada la soo qabto hadda la keenay 720 ina qaar macaankii ku kacay oo ku dhacay oo markay gaajo iyo haraad dhulkiina socon kari waayeen iska suuxsan cidla oo ka soo ururnay wada iska daraadeen wada Soomaaliyeed Soomaalinimadan ku dhaqaaleynaa anagu inay muslimiin ma naqaan laakiin Soomaalinimadan ugu dirlaxna maxaabiistu ilaa hadda waa socotaa 300 bay kor u dhaafaysaa gaadiidka la qabsaday ee tiknikada ay 152 gaaraya gaadiid kale oo iska xamuulina waa jira dhibashada iyo waxa laga wada hadli maayo iyagu waa tira male nin dhintay waa dhintay guul baa ilaaha baa mahad leh ilaaha baa mahad kale guul buna makasiyo gacanteeda soo galiyay cidna ma rabno inaanu dhibno cidna ma rabno inaanu barakicino cidna ma rabno inaanu dilo laakiin hadda dhulkay deganaayeen bay joogaan haddii ay soo noqdaan waxaan oogaysiinaa Soomaaliya ummadda islaamkaaba inaan xarig noo xidhnayn oo intii ay naga jareen 15 sano naga jareen aanu ka jari doono insha Allah taala ilaahayna waa naga gartaagay waa ilaahay xaq u gartaagay waayahay mid ka mid ah saraakiishii ee dabcan ugu dhibka badnaa oo lagu magacaabo Mahad Cambaashe ayaa la sheegay inuu wadada ka dhumay deegaan uu iska dhiibay bal xogta maxaa kala socotaan Mahad Cambaashe horta wuxuu ahaa nin dhul bahantaa la iska dhib badnaado ninkaasi waa dadka deegaanka waa nin dhul bahantaa ninkaasi markuu lahaa waa dhumay laakiin wuxuu raacay og buu hadda joogaa ninkaasi halka ragiisaas iska aaminay og buu joogaa ninkaasi wuxuu la joogaa wali isaaq uu la joogaa laakiin ninkii ugu dhibta badnaa saraakiisha isaaq ugu dhibta badnaa ilaahay gacantayda soo geliyay waxna cidin wageysan waa ninkii la oran jiray Faysal Cabdi Bootaan ninkii dad dumarka layn jiray dumaatada marfaca ku garaaci jiray moodayay awoodda uu maanta haysto inuu weliga haysanayo sida uu doono u xadgudbay gacantaydu ku jira waana la maxkamadeyn doonaa insha Allah maxkamad baa la marinaya insha Allah jasaayiisu leeyahay isagu la mid maaha maxaabiista war waxaasni wax dhici kara ma anagu waxaas wax walwala kama qabno Soomaaliland iyadoo dhisan oo hubkeedii wadato oo ciidankeedu dhisan yahay baanu subax isu bareernay 5tii subaxnimo waana kala qor qaadnay Soomaaliland wax walwala aanu ka qabnaa ma jirto waa laga yaabaa Muuse inuu dadka been u sheego Muuse Daayeer oo uu yiraahdo si uu kursiga Hargeysa u haysto shacabka iska soo tihiyo waa laga yaabaa laakiin intaanu kala bixinaa wixii nagu soo noqdaan anagu waxa cabsiyana kama qabno waxa nagu ballan haday soo noqdaan inaan abaalmarintaan sheegaya waa dil iyo qabasho dil qofka haddii uu tag la yiraahdo tag waayo wixii saaxiibada isku dhacay buu la kulmaya walaalow run haddaad doonayso qof maxbuusa oo gacantanada soo galay oo la dhibaateeyey ma jiro waa la daaweeyey kii dhaawac ahaa kii kale waa la dhaqaaliyey maxaabiis si loola dhaqmo oo sida loola dhaqmay ka wanaagsan ma aana jirto hal maxbuusa oo la dhibaateeyey ma jiro hal maxbuusa oo la hadal xumeeyey ma jiro dhalinyaradii ugu yaryarayd kuway soo qabqabatay sarkaalka ugu sarreeyay ummadda dhameeyay 15 sano dadka leynayay ee si gaar ah dambiyo dagaal u galay oo nimanka maxkamadda caalamiga ah laga dacweeyo looga yeeray aha
wiilal yaryar oo 15 jiraaba gacanta ku dhigay mana ay dilin mana hadal xumayn mana dhaawicin gaarigii uu watay baa la dhacay oo cararkii uu cararayay xoogay tuga gaareen laakiin cid wax loo geystay ma jiro hal qof oo la jir dilay iyo hal qof oo la hadal xulay midna ma jiro dad islaam baan nahay islaamtinimadaan u garanayna dad adkaan jiray baan nahay dad ciil qabeena ma nihin walwal kama qabno nimankaas inay ugu soo noqdaan waxaanu dhibanaa ma jirto qofku markuu ciil qabe isleeyahay arsan kari maysid buu maxbuuska jir dila ama dhibaateeya laakiin anagu walwal waxaas kama qabno gooja cadde hadda waxaa ku sugan dadka deegaanka waxaana ahayd halka ugu weyn ee saldhigga u ah ciidamadii militariga Somaliland ee laga ciiriyay halkaasi balse iminka waxaa ku sugan dadka deegaanka oo la saacanood mar dambe ugama soo dhici doonaan madaafiic halkaasi laga soo tuuray sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in maxaabiis aad u fara badan ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada dadka deegaanka xilligan ay ku sugan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wararkan iyo wixii ku soo kordha wararkeena soo socda ayaad ku daawan doontaane fadlan page-kan follow garay sidoo kalena share garay muuqaalka si uu dad badan u gaaro like-tuna waa inoo muhiim wad mahadsantihiin Ahmed Mohamed Arab reer Arab وتسد حالة تانجيرة magacaygu waxaan galaabo bukul muuse habaan guutada boqolaad aadan maxamuud shaaba waxaan nahay araba guutada waxa weeyaan istiraaturaad waxaan nahay yusuf maxmed cabdi inta salaamana guutada saddexaad xuseen xasan bal waxaa ka tirsanaa guutada saldhigoobaad واصل روي محمد حسن محمد منتدى بغداد في الماضي قبيل هنا عربة وقولنا وان عبد علي كذا ما قاعد قلت له لا بقى ما قاعد سوقنا خالد عثمان عيد منتدى اللحاد مرام حبايبي ما قاعد مستفادش انا ابلوس اللي حيلات انا أنا هاي نهار تعالى حاضر برعبد الله منتدى خنال بار مقعد ولا قلت ده تاشن قلت ده ولا الاحتلال والله ما تاي والله ولا وقوف سنه شيء ولا والله عمر وين ولا سكرتي والله ما تاي محمد هذا قلت له سكاشنات والله سكاشنات والله يا ما هو بانا والله ما عيسى تا هذا ما ستا تلي محاول تشوفي تلي محاول تشوفي ورا ما شاء الله ذاك ورا حالته الحمد لله إلهي ونقولي هي أو قال قرشة يسموها ورت الأورنج قرشة حورت لي ما أنت تسوقوري ما شاء الله إلهي ونقولي أو قال قرشة يسموها nimankaas cadawga aan ka karweynay warbulihiin naga aadana jabkooda maanta waa la arkaa nafya maal waxay lahaayeen badan haynaa taangeedii dadku dhigi jiray maraafiicii magaalada ku dumiyeen waankii nagu qaalisanaa ku dileena gacantaan ku haynaa hadda ma satay tali 25 xabuus baa laga hayaa iyo 80 gaari بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بانو مهد علينا يا أولا إلهي سبحانه وتعالى قوشن السيئي أيان مهد علينا يا marka labaadna waxaan mahad u celinayaa ciidamadayada geesiyaashayada cajiibka ah ee beesha harti SSC ee cadawgii naga kiciyay ee halka intay ka caydhiyeen maraaga og orodka ku galiyay og ee qaniimadoodii sidaa ugala soo haray waa ka qaniimadoodii hubkii waa lagala haray idoormaantu ku daayay mid jiisa iyo mid jabay iyo mid dhaawaca iyo mid bay hoofay waxay dibiyay musabbixu raaca musabbixiisa iskama idin qaban waayin 15 سنة اللي يدامهني عقل قد مسبح سقاقا ويدين وكمان تقنيمديني واتا كي أسياد بركلا هدنا إذا كلا هدني كا تايوان كدل بتنا إذا كلا هدني كي إسماعيل عمر قال إذا سيانا إذا كلا هدني صدق يلا ولا السنة هم كتبع سيانا وإذا كلا هدني
ويدك قنيمي سني ويدك قولي سني ما شاء الله بارك الله شن يا طبعا سنة بانو ذبهين شن يا طبعا كسنة اسكا قبان ويدين تاسكا بلا عقلقا ايدين قماضي ايدين بلنبليي ايدو صعبتو ميسين كورو صدا ما انت وكاسي واكا محابيستي اني وحا قاد ويدي دخاديرتي با قاد ويدي كويني داوعها كوي كان وحا قاد واي جيلاشي jaamacadii iyo iskooladii baanu ku xidhay markii jeelashii buuxsadeen meydkiina cali harti baa ka dhargo ilaayo wuxuu gorofsan yahay waddanka dhan buu gorofsan yahay war ma quruusaa loo ragaa la arkay war waad rogmateen oo waad qorqoonteen oo waad rogmateen idaarow waad qorqoonteen oo waad rogmateen muuse biixuu qaba annaga hanoo qabanine muuse biixi baa idin rogaye isagoo raaca annagu waa guulaysanay 32 sano ka hor dadkii talin jiray bayna taladu ku soo noqonaysaa 32 sano ka hor dadkii Soomaali u talin jiray bay taladu maanta ku soo noqonaysaa Soomaali dad baa u talin jiray dad baana maamul jiray cirdi iyo karaamo iyo sharafna Soomaali dadkii u talin jiray ayay ku lahayd taladii bayna ku noqonaysaa taladii 32 sano ka hor dadkii u talin jiray Soomaali bay Soomaali taladoodii ku noqonaysaa waxaan leeyahay ciidamada geesiyaasha ah ee qalabka sida ee og fadhiyaan shalay galab soo u tagay ee og fadhiyay og waa noo muuqatay magaalada og waa noo muuqatay waxaan leeyahay difaaca adkeeya halka inoo daga xadka inoo xidha waad mahadsantihiin waynu guulaysanay calankana burciyo hargeysa aynu ka taagaynaa Soomaalina inaga u talinayna horeyna Soomaali anaga ugu talin jirnay haddana Soomaali anaga u talinayna waxaan idin leeyahay garabkiina halkaasaanu geeliya ariga idinku qalaynaa halkaasaanu caanaha iyo diribta geela idin la garab istaagaynaa waad mahadsantihiin waan guulaysanay halka og ha ka soo dhaqaaqina waan idin ogahay inaad burciyo hargeysa geeli lahaydeen ay idin hor istaageen isimadeena iyo 45 iyo madaxweynuhu inay idin hor istaageen waan ogahay waxa weeye iyaga dulmi ku gubtay inagu iyaga dulmi mayno daarahoodana gubi mayno aadi mayne barta xadkeena aynu saa ugu taynana bartaasaynu ku haynaynaa waxa weeye naagaha qaylinaya ee Muuse ciidanka fasax damayadu waalantii Muuse ciidanku fasaxay xagay joogan naasoo ka dhamaaday ciidankii naasoo idinka qorqoomay naasoo idinka rogmaday namala warba ma haysaan miya nayaare na war ma haysaan miya na ciidankii dhamaa ilaahay Soomaaliland dib waa u samaysan karaa laakiin Soomaaliland maanta ku daysay guryaha ku ooya Soomaaliland maanta harti baa laqay waa ku daayay Soomaaliland 32 sano waxa dhacayseen iyo waxa dhacaysa hadda Taiwan ka keenteen iyo hadday Djibouti idin siisayba intii baa anaga maanta dhaxalnay anaga haysana qaniimadiina anaga la hadnay hadday taagi tahay de hubka noocyadiisa kala duwan miyaan ba tirin karayaaba hubka aanu qaniimada aanu helnay maanta heedhe ma sha Allah barakallah geesideeda noo horseeday geesideeda noo qabtay guulaysta ma leeyahay guulaysta garabkiina Allah galay leeyahay gabdhaha ku hadaaqaya garawaan tagaynaa maanta waxa arkaya mid leh boosaasan tagaynaa ma horta og ma soo gaari kartaa boosatimaadide bal horta og ma soo gaari kartaa markooda horta og ma iman kartaa na ciidankiini dhamaa na raggiini dhamaa na hubkiini gacanta lagu dhigay na 15 sano markaan ku abinayay na miyaad waalnayd na xagaad u jeeday na rogmatay guryaha xidho ka ooya na daarad guulaysay oo asaasi guulaysatay oo harti guulaysay talada dadkii lahaayna dib ugu noqonaysaa guulaysana guuliya go'nimo ciidamada waxaan farayaa ciidamada halka ka hayaan leeyahay garabkiinaanu taagannahay gaashaankiinaanu nahay barta og waxay udkeen ha ka soo dhaqaaqnina halkaasaan leeyahay geesiyaashadu mar dambe hadaad wiilasheera soo ruqaansataana hambada hadhay iyana waa lagu leefayaaye la hadha hambada hadhay isqalab bartaa idin leeyahay laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay qaniimadii inaan maanta gacanta kaga dhignay 32 sano waxay dawladda ku ahaayeen inaan saacado ku hantiyay saacado kooban inaan 32 sano waxay wataan inaan ku hantiyay baan aad ugu faraxsanahay Faysal Cali Bootaan gaarigiisii waa ka laangaruusalkiisina suuqaan ku xaragoonayna isna sheeladu noo jiifaa Faysal Cali Bootaan sheeladu jiifaa waxaan codsanayaa maxaabiis dagaal Faysal maaha waa criminal waa dambiile maxkamad baa la saaraya si gaar isaga loo eegaya isagu waa maxkamadaysan yahay waa criminal waa ninka shacabka waxa la dhacayay shacabka ninka waxa ku hogaaminaya weeye laakiin mar hadduu sheelada jiifo sheeladu maanta jiifaa waa adoon harti weeye maanta adoon harti weeye adoon SSC weeye sheeladaas uu jiifaa gaarigiisina anaga laamiga ku xaragoonayna kaarigu nagu garaacayna waa ka qaniibaysanay waxa weeyaan guuliyo gobonimo
guushu intaas oo cagaha dhulka ku sii haysa weeye waxa weeye waxaanu hanti maanta Somaliland hadday meel kasta isaga keeneenba qaniiba waa ka dharagnay naagaha leh fasax ciidanka nama dhangalaad nagula dagaalamaysaa bal ma ulaad nagula dagaalamaysaa waa kaa kaarayaashini waa kaa taangiyadini biyeemadii qabanay wada qabanay ma dhangalaad nagula dagaalamaysaa nama ulaad nagula dagaalamaysaa safaraha nagula dagaalamaysaa hubkiini oo dhan xabadi kama bixin xabad hubkiini gacanta lagu dhigay hubkiini iyo raggiini mee annaga haysana SSC Khaatuma haysata SSC Khaatuma hartiba haysta guuliga gabanimo geesiyada haysta guuliga gabanimo maaragtaan gawaarida meesha oo dhisatay suuga maaragtaan suuga waa laba gaari suuga gaariya ka gaari kara maaragtaan aqua maaragtaan sii wariya reerkeeta hoy reerkeeta isxade reerke hoy isxade استاك ريكاتا ويا ريكاتا واقف قاعد وريك حتى وريك حتى نحاول باللسان وريك خبو ملعب هاي ما تصور حالته هاي كيف ما قصدت هذا ريكتا ريكتا وريكتا ريكتا ورهاسب على ريكتا ها ايوب
عادي سوسي ايوب يا كلام عادي سوسي تعال عادي يا سعد مسلم